caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadam ku hormarana meesha ugu hooseysan yaan joognay haday noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadam ku hormari karo ummadda Soomaaliyeed anagoo ah ummad aad u aqli badan u xigmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kale ma aha waa go'aanka madaxda qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirka lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka wala la soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xal weeye waxa gudigan loo sameeyay marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato waxa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas cidii fulin lahayd waa idinka ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin gudiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeedhay halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan dad saaxiibo la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonayo dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xal ku gaaraan taas waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeena hadda aanan waqti hadda joogan idin ka fakirin aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xagee ka galinaa xagee caruurta ila waa tageynaa kulligeen ma wada joogeynay dadka halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirta annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad halkan lamid run wixii dhibaato aan u aragnay aan sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qoys maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waan la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogdhaawaan u nimid idinkana saayis lagban ila waa tageynaa kulligeen ma wada joogeynay dadka halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga hari doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirta annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad maxaa ugu dhow ku wada heshiin karaynaa maxaa adag annagu xalay radaan nahay ilaa xalay mana kala seexan maxaan dul qaadana halkaanu ka goyna maxaa aanu contribution maxaan ku taraa shirkada inuu guuleysto oo noo guuleysano aad iyo aad baan soo jecel aad iyo aad baan u hadal waxaan oo daran warab shirka iyo ummadda in sugaysa maxaa lagu guuleysan karaa intee imka la soo loo heshiin karaa intee baa adag maxaa la qaad karaa marka idinkana waxaa la deena labadun baa tiimeela tahay xil baad saaran maanta waxaa ummadda dhuleysanaysa halkan idinkana sugan halkan wada fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban